12 bisha 12 sanadka 2020 qodobada ugu waaweyn warkeennana waxa kamid ah xasan cali khayre oo socdaal qarsoodiye ku tagay dalka Ruushka hadaba maxay ka wada hadleen wasiirka arrimaha dibadda Ruushka ay ku kulmeen Moscow sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa xog ku saabsan maamul goboleedyada oo saddex qaybood ugu kala jabay doorashada yaa u soo haray madaxweyne Farmaajo oo cadeystay mowqifkiisa dib u doorashada madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaare Roble waxa uu sheegay saddex arrin oo kaliftay inuu tago Puntland madaxweyne Farmaajo oo wada hadal la bilaabay gudoomiye Cabdi Xaashi beesha Mudullood Cali Guudlaaw hordhigtay laba daran mid dooro gariiga oo dawladda Turkiga ku eedeeyay in Soomaalida ay jeclaysiisay tahriibka iyo musharax madaxweyne oo dhaqaale la'aan xoogan ay la soo diristay haddana warkii oo fidsan khayre ayaa socdaal qarsoodiye ku tagay Ruushka ra'iisul wasaare Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa safar aan la shaacin ku tagay magaalada Moscow ee dalka Ruushka halkaas oo kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov kulankani oo ahaa mid qarsoodiye ayaa soo shacbaxay markay baraha bulshada ku shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka waxaana kadib barihiisa bulshada ku xaqiijiyay Xasan Cali Khayre ayaa qoraal u soo dhigay Facebook ku yiri waxaan maanta kulan qada sharaf la qaatay wasiirka arrimaha dibadda dalka Ruushka Sergey Lavrov oo ka wada hadalnay xoojinta xiriirka iskaashiga labada dal ee Soomaaliya iyo Ruushka sidoo kale xaaladda guud ee gobolka Geeska Afrika waxaan si qoto dheer isaga wareysanay isbedelada dhaqaale iyo siyaasadeed ee gobolka ka socda ilaa hadda macada ujeedka safarka Khayre uu ku tagay Ruushka iyadoo ay ku soo beegantay xilli uu ku jiro ololihiisa doorashada waxaan Khayre uu ka mid yahay musharaxiinta ugu xilka madaxweynaha Soomaaliya Khayre ayaa mar hore ula kulmay Sergey Lavrov intii uu dalka ka ahaa ra'iisul wasaare loolanka doorashada Soomaaliya oo horey ay ugu lug lahaayeen dalal badan sida Qatar, Itoobiya, Kenya, Turkiga, Imaaraadka iyo dalal kale ayaa waxa suurtagal ah in Ruushkana qayb uu ka noqdo dhinaca kalena maamul goboleedyada ayaa saddex qaybood u kala jabay iyadoo la isku mari laayahay fulinta heshiiska doorashada dadban ay gaareen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxda maamul goboleedyada dalka bishii September ayaa waxa si cad u muuqanaya isbaasiyada siyaasadeed ee dalka ka jira xilligan dawladda federaalka ayaa taageero ka haysatay saddex maamul goboleed oo hore ula safnaa kuwaas oo kala ah Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed waxaa ka soo horjeeda laba kale oo ah Jubbaland iyo Puntland laakiin wixii ka dambeeyay bishii September waxa abuurmay xaalado mugdigeliyay saameyntii dawladda federaalka ay ku lahayd saddexda maamul goboleed ee taageersana Puntland iyo Jubbaland labadan maamul isbahaysi soo jireen ayaa ka dhaxeeya waxay weli ka soo horjeedaan qorshaha madaxtooyada Soomaaliya ay ku doonayso inay ku maamusho doorashada Soomaaliya waxaanay taageersan yihiin musharaxiinta madaxweynaha ee mucaaradka iyo gudoomiyaha aqalka sare oo hadda ah garab siyaasadeed oo ka horgudban doorasho ay iska maamulato fila Soomaaliya labadan maamul waxay culayska ku kordhiyeen madaxweyne Farmaajo iyo taageerayaashiisa oo weli ku adkeysanaya in doorashada ay qabtaan guddiga ay magacawda dawladda federaalka ee muranka uu ka taagan yahay waxayna labadan maamul halis ku yihiin inay fashiliyaan qorshahaasi sidii markii horeba ay meesha kaga saareen qorshihii ahaa doorasho qof iyo cod oo madaxweyne Farmaajo uu kali ku ahaa Koonfur Galbeed waa maamulka kaliya ee sida buuxda u taageersan qorshaha doorashada madaxweyne Farmaajo iyadoo maamulkaas aanu haysan wax culaysa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen waxa uu cadeeyay in lagu soconayo heshiiska doorashada dawladana ay xaq u leedahay inay magacawdo gudiyada doorashada Laftagareen waxa uu meesha ka saaray in caqabad laga dhigo arinta gobolka Gado ee Axmed Madoobe wato iyo doorka gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi ee guddiga doorashada Soomaaliland wuxuuna xilligan yahay madaxweynaha iyo maamul goboleedka kaliya ee sida cad u barbar istaagay villa Soomaaliya diyaarkana u ah inuu fuliyo qorshaha doorashada ay wadato Galmudug iyo Hirshabelle labadan maamul waxay ku wada jiraan hal qaanad markay timaado doorashada 2020-2021 waxayna go'aan aan la kala cadeynay ka qabaan arrimaha la isku hayo ee doorashada iyagoo ka siman inay si buuxda u taageeri kareen madaxweyne Farmaajo iyo qorshihiisa dib u doorashada madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor inkastoo si hoose uu kaga shaqeynayo dib u doorashada Farmaajo saaxiib dhowna uu la yahay agaasimaha NISA haddana wuxuu isku muujinayaa nin doonaya inuu dhexdhexaadiyo madaxweyne Farmaajo iyo madaxda mucaaradka madaxweynaha Galmudug waxa ka soo horjeeda inta badan siyaasiyiinta beesha uu matalo waxaan wajihi karaa xaalad halis ah oo xilkiisa soo wajahda ama qalalaasa ka dhaca Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo haddii uu si cad ula safto madaxweyne Farmaajo taasoo ku kaliftay inuu soo muujiyo dhexdhexaad inta laga adkaanayo mucaaradka ama xal kale uu imaan doono kaas isagu qayb uu ka yahay
hirshabelle waxay galmudug kala mid tahay in siyaasiyiinta waaweyn ee beelaha ka soo jeeda shabeellaha dhexe iyo hiiraan ay si weyn u diidan yihiin qorshaha madaxweyne farmaajo ee doorashada waxaana arrinta sii xumeeyey xaaladda gadoodka ee ka taagan gobolka hiiraan madaxweynaha aan weli la caleema sarin ee filla Soomaaliya ay geysay Hirshabelle Cali Guudlaawe ma awoodo xilligan oo xaalad adag ay ka haysato gobolka Hiiraan inuu la safto madaxweyne Farmaajo waxaana la ogyahay inuu madaxda mucaaradka u muujiyo dhexdhexaadnimo waxaana cad in Hirshabelle ay noqon doonto halka ugu dambeeya ee doorasho ay wadato filla Soomaaliya ay ka dhici karto qoorqoor iyo Guudlaawe waxaa mowqifkooda cabsida leh iyo hubanti la'aanta haysata laga fahmi karaa khudbadihii aan jihada lahayn oo ay ka jeediyeen shirkii Somali Partnership Forum ee Muqdisho ka dhacay marka la isku soo duubo shanta maamul goboleed ee dalka waxa uu madaxweyne Farmaajo xilligan isku hubaa in doorashadiisa ay ka dhici karto koonfur galbeed halka Puntland iyo Jubbaland si buuxda ay kaga soo horjeedaan dhinaca kalena Galmudug iyo Hirshabelle culeysyo kala duwan ay ka wajahayaan dhinaca mucaaradka taasoo sababtay in mowqif cadaysan ka qaadan inay taageeraan madaxweyne Farmaajo xaaladan adag waxay keentay in madaxweyne Farmaajo uu ku qasbanaado in waan cusub magaalada Garowe uu ugu diro ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kaasoo heshiis ka keeni waayay musharaxiinta isku heebta yihiin ee xaruntoodu tahay hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho geesta kalena ra'iisul wasaare Roble ayaa shaaciyay saddex arrin oo kala hadlayo Puntland ra'iisul wasaare Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi hogaaminayo oo shalay gelinkii dambe gaaray magaalada Garowe ee xarunta Puntland ayaa si weyn waxa uu soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni xildhibaano wasiiro mas'uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada qoraal ka soo baxay xafiiska Roble ayaa lagu sheegay in socdaalka ra'iisul wasaaraha uu qayb ka yahay safar uu ku marayo dowlad goboleedyada dalka isla markaana Puntland iyo maamulada kale uu kala hadlayo saddex arrin oo kala ah wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah arrimaha doorashooyinka dalka oo muran xooggan uu ka taagan yahay iyo mid saddexaad oo ah amniga horumarinta adeegyada bulshada iyo qodobo kale Roble waxa uu kaga mahad celiyay madaxda iyo shacabka Puntland soo dhawaanta diiran ee loo sameeyay waxaanu sheegay in xukuumaddiisu ay xoog saari doonto adkeynta wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka ra'iisul wasaaraha ee sidoo kale booqan doona dowlad goboleedka Galmudug halkaas oo kula kulmi doono madaxda iyo bulshada Galmudug docda kale madaxweyne Farmaajo wada hadal ayuu la bilaabay gudoomiye Cabdi Xaashi ila wareedda loo kalsoon yahay oo ka tirsan filla Soomaaliya ayaa inoo sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ogolaaday in wada hadal uu la furo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi xogtan helnay ayaa sheegaysa in madaxweyne Farmaajo uu doonayo in gudoomiye Cabdi Xaashi cabashadiisu ka dhageysto kadibna lagu qanciyo inuu ogolaado gudiga ama isbedel lagu sameeyo xubnaha gudiga si filla Soomaaliya ay isaga dejiso culayska ka saaran dibadda iyo siyaasadda gudaha guddiga doorashada ee heer dowlad goboleed isla markaana ka socda gobolada waqooyi ayaan weli lagu darin gudiyada maalin ka hor la xareeyay ee Hirshabelle Galmudug iyo koonfur galbeed waxaana sababta lagu sheegay in wada hadal uu jiro xubnaha beesha caalamka ayaa madaxweyne Farmaajo ku adkeeyay inuu dhageysto doodda gudoomiye Cabdi Xaashi oo macquul ah sida la sheegay Cabdi Xaashi ayaana diidan qaabka loo maray magacaabista gudiyada gobolada waqooyi waxaana tan iyo markii la magacaabay isu soo tarayay dood adag oo taagan filla Soomaaliya waxay damacsantay in heshiiska ay la galayso Cabdi Xaashi isaga dejiso culeysada la saaray ee ka imaanaya beesha caalamka iyo siyaasiyiinta Soomaalida sidoo kale haddii ay gudigaasi wax ka bedasho waxaa la sheegay inay doonayso inaysan bedelin kuwa kale iyadoo sabab kaga dhigaysa inay dhageysatay cabashada gudiyada wixii macquul ahna ay wax ka bedashay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa sheegay in saaxiibada mucaaradka looga baahan yahay inay tilmaamaan dadka ay dooda ka qabaan ee ku jira gudiyada si loo bedelo ama la isku arko arrintaas ayaa la sheegay inay ahayd calaamad muujinaysa in madaxtooyada Soomaaliya ay soo dabacday dhinaca kale beesha Mudulood ayaa Cali Guudlaawe hor dhigtay laba daran mid dooro odayaasha dhaqanka Mudulood iyo siyaasiyiinta beeshaas ayaa la sheegay in madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ay u soo jeediyeen inuu kala diro gudigii uu magacaabay madaxweynihii ka horreeyay ee Maxamed Cabdi Waare gudigaasi oo heer dowladda federaal ila lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in siyaasiyiinta Mudulood ay madaxweyne Cali Guudlaawe u jeediyeen inuu kala diro gudigaas ama maamulkiisa ay culeys saari doonaan si lamida beesha Xawaadle Cali Guudlaawe oo hadda ku dhiban go'aanka ay qaateen qaar ka mid ah siyaasiyiinta beesha Xawaadle ayaa waxa aad uga adkaan doonta rajadiisa ku aadan si maamulada Hirshabelle haddii ay ka soo horjeestaan beesha Mudulood oo hadda la dhacsan maamulkiisa waxaa sidoo kale Guudlaawe haysta culays iyo ballan uu ka qaaday filla Soomaaliya markii laga dhigay madaxweynaha taas oo ahayd inuu la shaqayn doono garabna u noqon doono xilli dalka uu ku jiro loolan siyaasadeed oo adag gudiyada doorashada Hirshabelle koonfur galbeed iyo Galmudug ayaa la xareeyay waxaana weli soo baxaya doodaha arrintan ka taagan oo ay muujinayaan siyaasiyiinta mucaaradka macada go'aanka uu qaadan doono Guudlaawe waxaa macquul ah inuu muddo la sii shaqeeyo madaxtooyada ilaa xaaladdu ay ka gaarayso meel sare
dhinaca kale wararka ka imaanaya gobolka Bokool ayaa sheegaya in degmada Tieglow oo ka tirsan gobolkaas ay meel fagaaraha ku toogteen dagaalyahanada shabaab oo 70 sano jira. Shabaab ayaa ninka odaga ku eedeeyay inuu ka shaqayn jiray arrimaha sixirka oo la sheegay inuu adeegsan jiray sidii lacag badan uu ku sameyn lahaa. waxay maxkamadda argagixisadu sheegtay in ninkan oo lagu magacaabay Isxaaq Xasan Daawud oo qortay dambiga lagu eedeeyay isla markaana uu muddo ka siman 20 sano ku shaqaysan jiray sixirka. Isxaaq ayaa lagu soo waramayaa in sixirku ku kala geeyay lamaanayaal badan halka kuwa kale oo isugu jira rag iyo dumarna uu isugu soo dhaweeyay. ninkan ayaa lagu toogtay goob ay ku sugnaayeen dadka deegaanka Tieglow ee gobolka Bay oo dagaalyahanada shabaab amreen inay shaahid u noqdaan falkaasi. argagixisada shabaab ayaa inta badan deegaanada ay gacanta ku hayso ka fulisa dilal toogasho waxay ugu yeeraan kuwaas oo ay sheegaan in kiiskoodu ay xukmiyaan maxkamadahooda kadib markay helaan caddeemo ku filan iyo qiraalka eedeysanayaasha. xubnaha ay argagixisadu ku fulisa dilka toogashada ayaa muddooyinkii dambe waxay u badnaayeen kuwa ay la xiriiriyaan falalka jaajuusnimo oo ah inay la shaqeeyaan dowladda Soomaaliya iyo dowladaha saaxiibka la ah ee dagaalka xooggan kula jira argagixisada. dhinaca kale dowladda Giriga ayaa Turkiga ku eedeysay inay dhiirigelinayso tahriibka Soomaalida iyadoo sameynaysa olole sare loogu qaadayo isla markaana dadka Soomaalida siinaysa fiisa kadibna ogolaata muhaajiriinta inay u sii gudbaan Giriga. dalka Soomaaliya waxaan fahamsanahay in mas'uuliyiinta Turkishka wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradaha kale ay dhiirigelinayaan in loo tahriibo Turkiga. waxaa sidaas yiri wasiirka socdaalka ee Giriga Notis Mitraje isagoo soo xiganaya marqaati furayaal la sheegay inay yihiin muhaajiriin Soomaaliya ayaa Mitraje waxa uu sheegay in codsiyada dadka lagu fududeeyo xafiis Turkiga ay ku leeyihiin Muqdisho halkaas oo ay ka qaataan fiisaha oo lagu helo shahaadooyin iyo dukumeentiyo ay bixiyaan hay'adda Turkiga ku leeyahay Soomaaliya. waxaa ka mid ah isbitaal iyo jaamacad ku yaala Muqdisho sida wasiirku uu sheegay. xukuumadda Ankara kama aysan jawaabin eedeynta ka soo yeertay Giriga. ila wareedyo Giriga ayaa sheegaya in dad Soomaaliya oo ka badbaaday doon 2 Diseembar ku qalibantay xeebaha Giriga ay bixiyeen xogta uu wasiir Mitraje u adeegsaday eedeyntiisa ka dhanka Turkiga. ugu dambeynna musharax madaxweyne ayaa dhaqaalalaan xoog la soo diristay. haweeney u sharaxan xilka madaxweynaha dalka Uganda ayaa shaaca ka qaaday inay la soo diristay dhaqaalalaan xilli doorashada madaxweynaha ee dalkaasi lagu waday inay dhacdo 14 bisha Janaayo ee sanadka soo socda. Nancy Kalembe oo haweeneyda kaliya ee isku soo taagtay xilka madaxweynaha dalka Uganda ayaa sheegtay inay joojisay ololaheeda doorashada waxaana cadeysay inay la soo diristay dhaqaale la'aan sidaasna ay u joojisay ololihii ay waday. haweeneydan oo la hadashay telefishin ku yaala dalka Uganda ayaa caawinaad weydiisatay shacabka dalkaas waxaana xustay in weli ay harsan yihiin degmooyin dhowr ah oo ololaheeda aysan gaarsiin balse dhaqaale la'aan xoog leh ay hadda la soo diristay. waxay sheegtay Nancy Kalembe inaysan isaga bixi doonin u tartamidda xilka madaxweynaha dalka Uganda iyadoo tilmaamtay inay dib u qaabin ku sameyn doonto ololaha doorashada xilli waqti yar uu haray. guud ahaan saaxiibayaal waa naga